Assalaamu calaykum. Maanta waxaan ka hadlaynaa waxyaabo ku saabsan jinka. Inta aanan bilaabin mowduucayna, fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saar, gambaleelkana furo sida uu kuu soo gaaro fiidiyoo waliba aan soo gelino channelkeena. Jaafuud waa noole ka mid ah jinniga, mar walibana waxa uu taagan yahay gadaashaada misena wuu kula socdaa ilaa aad ka seexanaysid. Marka aad seexatidna waxa uu bilaabaa in uu ku soo dul fadhiisto, laakiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala wax waliba xal ayuu u sameeyey. Sida keliya oo kaaga dul tagi karana waa adiga oo akhrista adkaarta hurdada. Waxaa iska caadi ah in aad cod maqasho marka aad joogto buuraha ama meel cidlo ah oo wax alaab ah yaalin. Codka aad maqashid xilligaa waa jinni, waxaana uga badbaadi karaysaa adiga oo akhriya adkaarta xilli waliba. Waxaa lagaa doonayaa in aad bisinka qabsato mar waliba oo aad meelaha qashinka ah wax ku tuuraysid. Waxaana suurtagal ah in aad ku dhufato jinni hurdaya kadibna meesha uu ka soo raaco. Ma la socotaa in jinniga uu leeyahay culumo, qabiilo, shacab sideena oo kale ah, dowlado, boqortooyo iyo diimo kala duwan? Mararka qaar waxaa dhacda adiga oo jooga guri cidlo ah, aad maqasho shanqar ama alaab meel saaran ka soo dhacaysa oo istiraahdo waa iska caadi, laakiin xaqiiqda sidaa ma aha oo waa jinni ayaa sabab u ah soo dhicitaanka wixii soo dhacay. waa haddii ay meeshu wax dabeel ah aysan jirin. Sidoo kale waxaa dhici karta in uu jinni ku jeclaado oo mar waliba kula socdo oo uuna kaa tegin. Waxaana laga yaabaa jaceylka uu kuu qabo dartii in uu ku yimaado asigoo isku soo shabahay ibni aadan. Arrinkaasi waxa ay qabsatay dad badan oo dunidan ku nool. Dhammaanteena waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu Ilaahay shartiisa naga ilaaliyo. Fadlan haddii uu ku cajab geliyo fiidiyoogan, like saar, comment ka soo bixi si uu noogu noqdo dhiirigelin. Soomaaliye horumar wacan.